aniga koona tribe kursi maanta aan qaadan karno MBA ma jira oo ma jiraan leey annagana murlo kama maarana xibin aan la qaadana ogaanteed lahada koona tribe kursiga way u taagan tahay koona tribe dhulkay ku dhacday xibin aan Mandera County ku haysanana malaha national government aan xibin aan ku haysanana malaha koona tribe marka la hal qof oo shakhsi go'aan kama gaari kara odayaashu way badan yihiin qabiilaha waa 10 qabiil markay isu imaadaan ay go'aan ka gaari karaan iyagoo isla jiraan ay dhihi karaan qofkaana wadana qofka ma wadana saan waxaan waa dhihi karaan we are in support of Gachagua anigoo maanta afhayeenka koona tribe maanta youth chairman ka maxaa meeshan aan ka hadli rabaa odayga darad gafi midaan sheega maxaa way odaygan darad maxasle koona tribe xibin maanta u taaganta oo guddi oo maanta MB-nimo ma jirta MB-nimo waa u taagan koona tribe way taaganta wiligeed way taagnaan jirtay murlo oo taagan wiligeed koona tribe taagnaan jirtay isku siyaasad aan ahaan jirnay wixii qofka bilaadanka qofka shakhsiyan qofkaas rabaas dhisi kara laakiin qofka lama xukumi kara meeshaas rabaas wax ka dhisi kara laakiin odayga inaas dhaxmaaha koona tribe qarash ma haysa hantiyay la asan tahay ma soo istaagi karta koona tribe hal qof oo MB u taagan malaha inaas dhax qarash la'aan haysa uu gafi waa qalad ugu weyn taas darad marka Nairobi la fadhiga ugu weyn isuga fadhi ani isugu waa fadhinay gabarna siin la dhaha fadhisi oo fast qofka ugu horeeyo koona tribe oo gogasho koow soo fadhiistay maxay ahayd nasiin gabar la dhaha nasiin dhaqane oo MB-nimo Mandera rabta way soo sheegatay odaygaas hadda sheegay macallin aadan ay u soo sheegatay odayaashay ku soo dhacday qofka ugu horeeyay iyada ahayd odayaasha way dhageysteen maxay dhaheen adiga waa u soo hormartay boqol waa ka dambeyn doontaa haddana wax ma qaadi karnay ogaanteeda lahaw gabartaasna u soo horeysay haddana waa jira oo dad kalena waa jiraan guhaad oo kalena uu taagan yahay maantanaas dhamaha MB koona tribe u taagan ma jira waa qalad nasiinna way taagan tahay guhaadna uu taagan yahay dadkan maanta dad qarash la'aan maaha koona tribe maanta qarashkay haysana waduqan waxaas ka sheekeynaa jaahiliyan iska sheekeynaa wax hor dhace dadka horaas ka sheekeynaa 40 sano 50 sano ka hor wax dhacaas ka sheekeynaa waxaas ka sheekeynaa waxaasna loo baana koona tribe dhaqaalaha haysata beeraha la tabcay kulli waxaan ayuka iska leh hantidooda bas beerahooda bas dhulkoon bas maanta madaxdaanaas arkayso kulli koona tribe ay ordiyaan waxay u ordiyaan inta xibinay haystaan way markaan ani maxaan dhihi lahay odaygan uu qaldamay waxaas maantaas meeshaan iska sheegay waa wax qalad MB-na waa u taaganahay qofkii bilaadan qofkii shakhsigiisa koona tribe wiligood murlo oo taagan koona tribe waa taagnaan jireen Abdiqaadir soo istaagi jiray qof kasta soo istaagi jiray qofkay rabaan ay dhisi jireen midda kale tan maanta oo tii darada ka hadashina tii Gachagua ka hadashay Gachagua waa nin maanta noodistan dhamaal koona tribe maanta koona tribe bas naceeb uma qabay Soomaali dhamaalaas naceeb u qabaa Soomaali dhamaala asnaceeb u qabaa Soomaali dhamaala adduunka dhamaala Soomaali asnace asleeyahay Soomaali meel lagu arkaba hal bixi wuu takoori nin dad Soomaali maanta adduunka dhamaala Soomaali naceeb qaba Soomaali dhamaala adduunka Soomaali wax magac Soomaali arkan nacabsan maanta ina media u soo istaagtaa dhahday ninkaas maanta ana wata waa qalad ay dhicin mar damba ninkaas horaanba suudka la xirna hata madaxweynaha bari asleeyahay maanta ana labisana asleey iyo muut sugaaba saafis u baahan ninkaas sugaaba dhaqan cilis u baahan dadkiisa qoomkiisa raasada qoomkiisa hata ciidas maaha qoomkiisa waa gorilla halaas